salaadiin odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda degmada Togwajaale ee gobolkaasi Gabiley ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay si degdeg ah sharciga hor keento cidii ka dambeysay dilka muwaadin u dhashay degmada Wajaale oo ay dhawaan sheegeen in halkaasi lagu dilay odayaashan iyo waxgaradkan oo fariintan diray ayaa yiri waxaan leeyahay xaq la ilaaliyo dawladdu waa inay soo saartaa waa inay hortayda keentaa waa in maxkamad degdeg ah maxkamada dib baa loo dhigi jiray waa in tayd in la soo dedejiyaa waa in ninkii islaamiga xil iska saaraa waa in ninkii dawladda ay khusaysaana xil iska saaraa waa in aniga la ii yeedhaa marka la tooganayo waa in la soo hordhigaa haddii dawladnimo jirto weey hadday Soomaalinimo jirto weey hadday Soomaaliland jirto weey waxaanu codsanaynaa oo u sheegaynaa Soomaaliland oo dhan dadweynaheega dawladdeeda in halkaa waxa ka dhacay u qaran dumis ku yahay dalka Soomaaliland laftiisa in la badbaadiyo dalka in la badbaadiyo dadka dhibtu ku dhacday in dawladdu gurmadkeega ka yaraysatay oo ina ixtiraam halkaasi culayskii ay lahayd anay ka gaadhin ilaa imikana waxaan booliska ahayn una noogu iman waxaanu leenahay war dalka waa la wada leeyahay war dalka wixii dib u tagay ka dhacaya in loo gurmado u baahan yahay daliil baanu ka tirsanaynaa dawladda xaggeega meeshaasi waxay u baahan tahay badbaado degdega ummadda geeriyaysanina samirsiin degdega oo waliba heerkeegu sareeyo baa lagu bogsan karaa haddii kale fulkaana ka qarxaya shalay Wajaalaanu ka nimid Hargeysa nimid jaranka booliskaanu u nimid wuxuu noo cadeeyay inuu kiisku cad yahay isagu awoodda u leeyahay oo kaliya ay tahay inuu dedejiyo maxkamadda la saaro waa sax hay'adaha sharcigu wixii ay ka marayaan ka maraan dawladdu halkeedii way ka gaabisay inay gurmadka gasho si degdeg ah u gasho dadka waxaas ku dhacayna ay fadhiisiso weeji wali uma iman dadka hawshaas ku dhacday dhibta adag uma iman dawladdu ta waxa sheegaya anigu ninka falka lagu dilay waxaan u diyaarsanahay si wanaagsan oo wacan oo dadku ku aamino oo loo ogaado in loo dilo maxkamadda shariicada degdega loo saaro ninkaas arrinkaasi waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha haday tahay hay'adaha ku shaqala ama maxkamadda wixii sharciga maamula intaba waxaan u sheegaynaa ilaa madaxweynaha cabashada iyadaasi maaha tudhayala la fudaysadana maaha waxa weey sharciga Ilaahay wixii lagu fuliyayna dadku isku lama warwareeyso waa lagu kala bogsadaa annagu waxaan codsanaynaa sharciga Ilaahay in la noo mariyo oo ragga qisaastii nin uu toogtay qaarna gaari midna gaarigu waday ka kalena qayb uu ka qaatay nin walba wuxuu qayb ku leeyahay de sharciga ninba intiisu buu laga marine in la nooga mariyaan doonaynaa waxa weey arrinka halka ka dhacay waxaan leenahay in sidoo u dhacay loo fuliyo oo intii kii dilay kii soo sheegay kii baabuurka u kaxeeyay kii shirqoolka kula jiray halkii nin walba dambigu ilaahay la qabadsiyo nin walba dambigu leeyahay nin walba ku leeyahay la qabadsiyo madaxweyne aday ku taagan tahay go'aanka adaa iskale dilka aduun baa dili kara kala dayn kara waxaan ka codsanaynaa inaad arrinkaa fulisaan oo dishaan oo halkii ay ku dhacday qisaastu ee ragga lagu dilay ninka lagu dilay raggii la geeyo lagu toogto taa baa ku qaboobaynaa taa baa ku nasanaynaa taa baa ummaddu ku dagaysaa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida